وحولي يزيد بن أبي حبيب لما احتضر ابن أبي صرح منك ابن أبي صرح الأورنجري markii geeridu ay ku soo xaadirtay isagoo jooga meesha la yidhaahdo alramla oo halkaasi uga cararay fitanka iyo masaa'ibka iyo khilaafka muslimiinta dhex yaalay ayaa waxa uu bilaabay habeenkii inuu yidhaahdo isagoo xanuun fara badani uu hayo war waagii maydiin baryey markaasaa la yidhi maya falamaa kaana cinda asubx qaala yaa hishaam innii la ajidu barda asubxi fandur markii waagu uu soo dhowaaday ayaa waxau idhi hishaamow qabowgii waaga ayaan dareemayaa ee oradoo baxo eeg waagi inuu bariyey dabeetana waxa uu yidhi isagoo ducaysanaya allaahuma ajcal khaatimata camali subx ilaahow camalkayga waxa aad ku khatimaysid waxa aad ka dhigtaa salaadaasi subax ee waageedu iminka uu bariyey fatawada'a uma sallaa فقرأ في الأولى بأم الكتاب والعاديات وفي الأخرى بأم القرآن والسورة وأويسيسي صلاة صباح يوتكدي إصدر رقعتي هراخي فاتحة لي سورة العاديات رقعتي لبادنا أخريي فاتحة لي سورة كلا وسلم عن يمينه وذهب يسلم عن يساره فقبض وحاو سلام نقتضي حقا سمدك markuu doonay dhinaca bidixday uu salaamo naqsado ayaa naftu ay ka baxday oo ruuxdiisii xagga rabbi tabaaraka wa tacaala loo qaaday waxaa la soo saari doonaa yowma alqiyaama oo ilaahay la hor keeni doonaa isagoo sharafta caynkaasiya ku tilmaaman oo salaadii rabbi tabaaraka wa tacaala ku jira waxaa dhacday caamir ibnu cabdillaahi ibnu zubayr sheekhii la odhan jiray ayaa wuxuu maqlay almu'adin وهو يجود بنفسه يدعو نفطه أي كفر ميسو سكرات الموت يكتره فقال خذوه بيدي وحرق عنك يقبته إيجاي مساجدك فقيل إنك عليل وعلي الواد حنوصنيسا يواد بكتا قال أسمع داعي الله فلا أجيبه هو حان مغليا كحق إلهي يقوي رايه إلى حي على الصلاة حي على الفلاح مركاتانا نجيب هين وأنا انتقهين هلك وكذا واقي وكيرايه فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب وركع ركعة ثم مات قعنت يا الله قبطه مساجد كالجي صفكي بالدحجوتي إمامك وصلاة المغرب ذكتك كنا يبو لقلي هل ركع مركوتك ذبي نفطه كبح